gaalkacyo filanban gaalkacyo filanban bariidinayay ayo gobolkii mudug xiliyihii geyiga Soomaalida waxaan leenahay jaalayaal saaxiibayaal iqra gaalkacyo joognaado gobadan ku maalaayo garawaan ku maalaaye waxaan leenahay soo dhawaada waa gobolkii gaalkacyo xiliyihii geyiga Soomaalida aad baan ku faraxsan waqtiga la qaatay iyo soo dhaweyntiinaba ma haysan nimankan reer mudug horta ayaa dhexdaas baan halkan imiyo waad indhaafay socdaal wada ku dhaafayo soo dhaweyntiin aad baa u maasitihiin waa markii labaad soo laabto marka soo laabashada dheen wareer rag wax faltama maxaad ku celiyay gaalkacyo wuxuu markay gaalkacyo wataan doraa daawasho imiyo wataan ka daan dool ku soo maray hablo doora baan soo arkay oo doorin midabkii dariiq xumada biyo bulshada deeray kama sheegin marka gaalkacyo waxaan ku soo laabtayna waa labada xiliyood waa halbowlihii ugu muhiimsanaa geeyiga Soomaaliya degto taana wada ku bashaareynaya afar gobol la waxaad la qabtaan mid baad kala qabtaan oo gobolka Togdheer Sool Mudug iyo Qorraxi meel yiraahdo waxa ka soo baxa inta badan doorka bulshada ka soo baxa waxaad sii dheertihiina waxaad tii xubin qaali iyo labada xiliyood badan geeyiga Soomaalida marka waxaad ogaatiin deena xubinta muhiimka tihiin oo waxaad inaad saa u daabushaan waxa ku yiri inta awrad geelo ku soo yaacdaan ma garanaysaa soo saartaan Cabdullaahi Ciise Midhan aadiyad marka Cabdullaahi Ciise Midhan ma cid ka wayn aad baa maasantihiin tay aan joognaa duleedka magaalada Gaalkacyo sida u jeedaan waxaan dhex joognaa nimcada Ilaahayna siiyay waa qayb kamid ah kheyraadka iyo nimcada barwaaqada laga baahan yahay sida u jeedaan waxa garbahayga jooga dhalinyartii gobolka Mudug xaqiiqatan waa dhalinyaro u heelan mar walba soo dhaweynta iyo sida geeyiga u soo bari lahaayeen dadka kale oo gobolada kale ka yimid waxa maanta halkan ku kulanay aniga iyo abwaankii weynaa abwaan Jeego waxaan leenahay lagama sheekeyn karo barwaaqada gobolka Mudug baan isaga damaanshaadeenna oo aan ku qaxweynayna galabta bismillaah awalna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkan aan joogno waa magaalada Gaalkacyo gaar ahaan duleedkeeda waxaana martino ah walaasheen Iqraan Cayn iyo abwaankeena weynaa ee qaaliga ahaa abwaan Jeego waxaan leeyahay marka anoo daaliyo Hargeysa dhulkii Mudug daawanaya daaraha Jubbaland ka taagan anoo boorama dalxiisa damaashaad ceeri gaabo anoo Sool iyo Sanaag daga miyaan dawarsada shisheeye damiirku waa inuu shaqeeyo dadnimada waa inaan difaacno sharafta u dagaal waqaaba ceebaha diido ha qaadan wixii dulimna abuurana deerka ka xiro ha raacin doqontu Bismillahir Rahmanir Rahim alxamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin amma ba'd marka ugu horeyso waxaan magacayga waa Faarax Bilaa Faarax Irfe waxaan ka mid dhalinyarta gobolka Mudug ugu horeyn waxaan is xasuusinaa taqwada Ilaahay hadii meel lagu kulmo waa muhiim in taqwada ay bal is xasuusiyo marka intaas waa taqwada daan ugu gudbo waxaan aad ugu faraxsanahay dhalinyarta gobolka Mudug iyo abwaankii weynaa abwaan Jeego iyo qoraadii weyneed qoraa Iqraan Cayn inaan kalabtana la joogto iyo dhalinyartii gobolka Mudug oo ku soo dhaweynayay kalabta gobolka Mudug ku soo dhawaada jaalayaal gobolka soo dhawaadaan leenahay mar labaad mar saddexaad waan arka gobolka quruxda waa xaruntii dhalinyarta gobolka waa xaruntii dhalinta Soomaaliyeed baa oran karna gobolkan waa runtii dhalinyar waxaan soo dhaweynaynaa dhalinyar kasta oo joogta gobolka dhamaan gobolada kale dalka waxaan leenahay ku soo dhawaada Gaalkacyo waan idin heeganahay waan idin soo dhaweynaynaa gacmo furan dhamaan waxaan rajeynaynaa insha Allah Soomaaliya dhan xarun baalkii dhalinyarta dhan gacmo isqabsan doonaan dalkan waxa sugaya oo wax ka bedeli kara awalba xorriyada soo baalkii xorriyadan la dalgu naaloonana noo soo hayay waa dhalinyarta markaan leenahay dhalinyarta gobolada jooga dhan waxaan leenahay gacmo isqabsada istaageera isku yimaada dalkan iyo dadkan saad hogaamin lahayd awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaa maanta ku sugannahay duleedka magaalada Gaalkacyo waxaan haysanaa barwaaqo waxaan haysanaa nabad alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaa maanta si diiran oo wanaag iyo xushmad ku jirto ku soo dhaweynay abwaankeeni weynaa ee abwaan Jeego iyo walaasheen qoraadii weyneed ee Iqraan Cayn iyo abwaan Jeego waxaan leeyahay ku soo dhawaada Gaalkacyo guri barwaaqo guri nabadeed welcome to soo dhawaada leenahay markasta waa inii heeganahay saan nahay anaga dhalinyaro iyo maxaa la dhahay adoo Ilaahay ku rooyay marka waxaan leenahay welcome to Gaalkacyo ku soo dhawaada badan hal doorka magaalada inaan halkaan la taaganahay aan soo dhaweynayno walaalkeen abwaan Jeego abwaankeena weyn aan sugotinayno walaasheen iqro Saciid Xasan Iqraan Cayn oo inuu soo gaarsiisay buuqi barwaaqo laga baahan yahay
sidaan la socono buugga waxay ku soo qortay maanso ah weydiin oo ay su'aal aynu weydiinayso waxayna tiri dalaga kii aan u baahdo anoo geygayga baahsan awoodda inaan ku beerto shisheeye wuxuu bisleeyay awoodda inaan ku beerto shisheeye wuxuu bisleeyay maxaa baad iiga yeelay aniguna waxaan ugu warceliyay barwaaqada taal dhulkayga badaha khayraad ku buuxo beeraha dhirtu raaracayso badaroolka ilaahna siiyey inaanu ka baahnaano dabaalnimo weeye buuxda midaan bahba ila wadaagin dal kale iiga soo boqolay barkiisa inuu la dhoofo kolkuu buuxsado mugiisa anna aan baryo mutamayo baahiyaan jirin sheeganayo wuxuu boqorkay siiyey kolkaan biyoon ilaawo midaan bismillaah aqoonin diintayda ka baydadaya inaan barqo hoos imaado dalkayga intaan ka duulo dalkayga intaan ka biibo doon iyo baawuur ka fuulo baraaro midaan dhaamin badbaado inaanu doonto wale bahdilad ma dhaafto dhulkan bilanoo ifaaya ilaah boqoruu isiiyey inaan ku dhex baahiyoodo wale dhigayo qabriga dhigayo qudaba ka jara qabaani gasho bacdaan ku arkay qabowday nafto adaa qudhayo qulubta hanto qaciba ii baxa dadkoo qoslaye qabowgiyo dhaxanta maayla qabta qabowgiyo